السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال kusoo dhawaada kanaalka Xangi Show. Muuqaalkayga maanta waxaan uga hadlaynaa filim lagu magacaabo 10x10. Filimku wuxuu ku bilaabanayaa Kati oo u socota meel ay ka shaqeyso oo lagu magacaabo Flower Shop. Kadibna waxay aadaysaa inay soo samayso yogo. Dhanka kale waxaan aragnaa nin soo dabaraacaya kaasoo lagu magacaabo Roberto Luis. Inta ay Kati ku jirto yogada, waxaan aragnaa in banaanka uu ku sugayo ninkii soo dabaraacayay. Kadibna waxa uu aadayaa dhanka baabuurkeeda wuxuuna ku soo samaynayaa hubin. Waxaan aragnaa inuu kursigiisa hore soo dhiganayo bac balaastiga. Wali waxa uu ku jiraa sugitaanka. Waxaana soo wacaya gabar ka shaqeysa gurigiisa taasoo lagu magacaabo Alandara. Dhanka kale waxaan aragnaa Kati oo ka soo baxday yogada lana sheekaysanaysa gabar kulana sheekaysanaysa qolka dhar bedelashada. Gabadhaas oo u sheegaysa inuu ninkeeda qiyaamay. Kati waa ay soo baxaysaa waxayna doonaysaa inay aado gurigeedii, laakiin nasiib xumo marka ay gaariga sii galayso ayaa waxa gadaal ka soo maray Roberto Luis kaasoo madaxa u gelinaya bac wuxuuna isku dayayaa inuu ku caburiyo waxayna ku dhacaysaa dhulka. Laakiin Kati waxa isku dayaysaa inay iska riixdo, waa ay iska riixaysaa waxayna iska saaraysaa bacdii. Waa ay qaylinaysaa si ay caawimaad u hesho, laakiin hal nin ayaa meesha ka dhow isagana headphone ayaa dhagaha ugu jira oo ma maqlayo. Roberto Luis waxa uu sheegayaa inuu dilayo haddii mar dambe qayliso, wuxuuna afka uga dhajinayaa kollo. Gacmaheeda gadaal ayuu u xirayaa. Luis waxa uu ku noqonayaa gaarigiisa si uu u sugo inta gaariga u dhow Kati uu u banaynayo meesha. Isla markiiba waxa imaanaya ninkii watay gaariga u dhawaa Kati, laakiin ma arkay Kati. Meesha uu ka dhaqaaqay ayuu Luis soo dhiganayaa baabuurkiisa. Kadibna waa uu soo qaadayaa Kati gaarigiisa qaybta dambe ayuuna ku tuurayaa kuna xirayaa. Wuxuu u dhaqaaqayaa dhanka gurigiisa. Mar ayuu istaagayaa traffic light-ka, laakiin boolis ayaa dhinaciisa soo istaagaya. Laakiin wuxuu iska dhigayaa mid aan wax dambi ku jirin si aan loo tuhmin. Wuxuu iska dhigayaa mid degan. Xogaa yar kadib waxa uu tagayaa gurigiisii waxaana aragnaa inuu furayo garaashkiisii. Kadibna uu gelinayo gaarigiisii. Waxaanu soo saarayaa Kati wuuna soo jiidayaa waxayna ka dhigaysaa lugaha. Wuxuu soo gelinayaa maqsin cabirkiisu yahay 10. Kadibna waa uu ku xirayaa wuxuuna ka dhigayaa albaabka derbi beena wuxuuna dhigayaa ubax. Kati waxay isku dayaysaa inay iska furto xariga. Waxaana aragnaa Luis oo ku jira jikada. Kadibna waxa uu aadayaa gaariga wuxuuna soo fiirinayaa waxa ku jira boorsadeeda. Kadib waxa uu ku soo noqonayaa Kati wuxuuna u sheegayaa inay darbiyadani aysan gudbinayn codkeeda si kasta oo u qayliso aanan la maqlayn. Kadibna waxa uu sheegayaa in uu koolada ka furayo si ay magaceeda ugu sheegto. Waxay ruuxaysaa madaxeeda si ay u ogeysiiso inay fahantay. Waxa uu ka fujinayaa kooladii waxayna bilaabaysaa inay qayliso. Kadibna waa uu isaga tagayaa wuxuuna aadayaa xafiiskiisa si uu u hubiyo inay duumayaan wax walba oo maqsinka gudihiisa. Kadibna waa uu aamusinayaa wixii. Wuxuu bilaabayaa inuu nadiifiyo dhiigii Kati lugaheeda ka socday markii uu Kati dhulka ku jeediyay. Kati waxay bilaabaysaa inay jirkeeda ku garaacdo albaabka, marna garbaheeda marna lugaheeda, laakiin labadaba u shaqayn weynayaan. Kadibna waxay go'aansatay inay isku daydo si kale. Kadib markii ay ogaatay inuu qolku leeyahay daboolka hawada ka soo gasho, waxayna u soo dhawaatay daboolkii. Kadibna waxay ku qaylinaysaa caawiya, laakiin cidna ma maqlin sababtoo ah gurigu wuxuu ku yaalaa meel fog oo aan cidna ka dhoweyn. Dhanka kale Luis waxa uu daawanayaa war hore oo lagu sheegayo kiis dil ah oo dib loo furay kadib markii ay cadaatay 3 qof oo dhintay inaysan dhimashadoodu ahayn mid iska caadi ah. Luis hadda waxa uu cabaysanayaa biskooladiisii waxaana u baxayaa dhanka Kati waxayna weydiisanaysaa inuusan taaban haddii uu sii daayana ay siinayso $50,000. Luis ayaa dhahaya ma doonayo lacagtaada, kaliya waxaan doonayaa inaad magacaaga ii sheegtid. Waxayna ugu jawaabaysaa magacaygu waa Kati Newland. Waxaan aragnaa inuu ka niyad jabsan yahay wuuna ka tegayaa jikada ayuuna ku noqonayaa. Wuxuu baarayaa boorsadeeda laakiin waxba kama helayo. Wuxuu aadayaa inuu daawado warkii hore. Markaan warku waxa uu sheegayaa in cadayntu aysan ahayn mid dhammaystiran, saa daraadeed kiiskii haddana dib ayaa loo xiray. Familkii ay ka dhasheen 3 qofna waxay qorsheynayaan inay ka hor yimaadaan go'aankaas. Luis markaan waxa ayuu karinayaa. Dhanka kale Kati waxa ay bixinaysaa dadaalkeedii ugu fiicnaa si ay gacmaheeda hore u keento halka Luis oo u soo wado qado. Laakiin Kati waxay ku sugaysaa albaabka dhinaciisa. Waqtiba iskama dhumin isla markii waa ay weerartay. Kadibna qolka ayay isaga baxday, laakiin kama harin Luis. Kati iyadoo doonayso inay iska reebto ayay waxay soo qabsatay ubixii saarnaa miiska.
kadibna madaxa ayaa ay uga dhufatay waxayna isku dayeysay inay wacdo booliska iyadoo ka wacaysa telefoonka gacanta ee yaala guriga. Louis ayaa arkaya waxa uuna tooganaya qaybta hoose ee laynka. Kadib marka uu soo dhawaado ayay wax ku dhufanaysaa waa ayna ka tagaysaa isagoo miyir daboolan oo dhulka yaala ilbiriqsiyo yar. waxayna aadaysaa jikada kadibna waxay helaysaa teleefankeedii gacanta laakiin waa bila signal. waxay baaraysaa khaanada waxayna ka baaraysaa mindi ay isaga jarto xariga ka hor inta aysan ka tagin guriga. nasiib darro dhammaan albaabada waa loo garaysan yihiin. Louis ayaa soo kacaya kadibna waxay weydiisanaysaa siduu ku ogaaday shaqadeeda laakiin waxa uu jawaabayaa nafarisi ana qadayno. kaligiis ayaa fariisanaya marka hore waxa uuna weydiinayaa magaceeda mar kalena waxa ugu jawaabaysaa magacaygu waa Kati. Louis waxa uu xasuusinayaa inuu haysto biskoolad mindidana aysan waxbana ka tarayn maadaama uu haysto hub. way aqbashay inay fariisato laakiin ma taaban cuntada. kadibna waxa uu sheegayaa hadduu doonayo dilkeeda inuu mar hore dili karay. mar kale ayuu weydiinayaa magaceeda waxayna u sheegaysaa magacii hore